wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland Faarax Cilmi Geedoole ayaa maanta tababar furay ilaa dhowr iyo 20 xubnood oo ka kala socday ilaa 5 tuulo oo ka tirsan gobolka Saaxil kuwaas oo lagu beeray geedka timirta ah oo ay dhawaan dalka Imaaraadka ay ka keeneen hay'adda GIZ isla markaasina ay ku deeqeen maamulka gobolka Saaxil si looga beero deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil iyo guud ahaanba jamhuuriyadda Soomaaliland ka qaybqaatayaasha tababarkaasi ayaa baran doona habka geedka timirta loo beero iyo sidoo kale sidii loo dirsi lahaa xanuunada ku dhacay iyo habka loo ilaaliyo geedkaasi inta uu ku jiro bixitaanka wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland Faarax Cilmi Geedoole oo halkaasi hadal ka soo jeediyay ayaa tababarayaashaasi ku booriyay in ay ka faa'iideystaan casharada iyo duruusta kala duwan ee ay ku qaadanayaan ku tacalluqa beerista geedka timirta isagoo wasiirku sidoo kale ka waramay qorshayaasha wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida ay u doonayso in dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland uu isku filnaado dhinaca wax soo saarka gobolka Saaxil waxay hadda wasaaradda beeraha qorshaheeda ku jira in gobolkan beerihiisii la dardargeliyo waxaana beeraleyda gobolka Saaxil oo u badan beeraleyda waraabka ah aanu ku boorinaynaa inay timirta beeraan مسؤولينta gobolka Saaxil sida gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi iyo gudoomiyaha golaha deegaanka Berbera Cabshukuur Maxamuud Xasan Ciidin oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay geedkaasi timirta isla markaana tilmaamay in aanay ahayn markii koowaad ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland lagu beero geedkaasi balse hore lagu tijaabiyay oo ka baxay deegaano kala duwan oo ka tirsan dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland seminaarka waxa la isku qabanaya in aqoonta halkan ka kororsataan beerta kula noqotaan إنه كفر موظف وفهمه إن الله سبحانه وتعالى وكافي لي إنه قعمنا على مهستبه وقعدت يصير مرقي مسكح يسلوق لي إنه بيتي سقطه أو آمنه وهو هيستوى xubna ka socday hay'adda GIZ iyo marti sharaf kale oo ka soo qayb gashay kulankaasi ayaa iyaguna halkaasi hadallo kala duwan oo ay ku soo dhaweynayaan geedkaasi timirta ka soo jeediyay geesta kalena ururka amal ee heer qaran ayaa maanta tababar u soo gabagabeeyay ilaa 40 haween oo iyagu kuwa ka shaqeeya hay'adaha laamaha dawladda iyo ganacsiyada kala duwan tababarkaas oo ay ku qaadanayeen muddo hal maalin ah sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen aqoontooda isla markaasina uga shaqeyn lahaayeen hay'adaha laamaha dawladda uguna dhiirin lahaayeen heerarka kala duwan ee siyaasadda waxaana halkaasi hadal ka soo jeedisay Caasha Axmed Xuseen oo iyadu ka socotay ururkaasi heer qaran ee amal waxaana ay tilmaantay in tababarkan uu ku saabsanaa sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta haweenka kala duwan ee iyagu shaqaalaha waxaana ay sheegtay in ururkan uu badanaba ka shaqeeyo sidii kor ugu qaadi lahaa aqoonta haweenka iyo sidoo kale ilaalinta iyo kor u qaadista deegaanka iyo arrimo kale oo muhiim oo la xiriira arrimaha bulshada waxaana sidoo kale halkaasi hadal ka soo jeedisay Rooda Cabdiraxmaan oo iyana si weyn u soo dhaweysay tababarkaasi kor loogu qaadayay aqoonta haweenka مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون كقرن كالصوماليلاند بربرة